wasiirka diinta iyo awqaafta Soomaaliland Sheekh Khaliil Cabdilaahi Axmed oo maanta warbaahintu wax ka weydiisay kaniisad la sheegay 30 sano kadib dib looga furay magaalada Hargeysa ayaa sheegay wasaaraddiisu war rasmi ah ka soo saarayso arintan laakiin waxa uu ka digay in tafaasiil khaldan laga bixiyo arinkan runtii aad iyo aad baan uga xunnahay wararka runtii lagu faafiyay baraha bulshada Facebook oo runtii soo qaadanaya qof dumar oo Kristaan ah oo dalka degan oo joogta soo xigan hadaladeedii soo xiganaya laakiin sawir khaldan oo waxba ka jirin iyo war aan ku tirkutana runtii ku fabric degree oo warka bedelay saadarteed wasaaradda diinta iyo awqaaftu waxay go'aansatay iyadoo kaashanaysa wasaaradda arrimaha dibadda in release press release sameeyaan ama maartay war saxaafadeed hadii la arrinta xaqiiqada qeexi doona insha Allah wala mahadsantii wasiirka diinta iyo awqaaftu waa uu diiday saxaafaddu wax su'aalaha ka weydiisay arrinka waxaana uu sheegay inuu dub ka faahfaahin doono arrinkan xasan Suleymaan Haruun Xasan Galeyd oo Cable TV magaalada Hargeysa.